Halkani waa deegaanka Biyacde oo ka tirsan afarta tuulo ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ka dhacday xafladda furitaanka masjidka weyn ee jaamica ah. Xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo kala duwan, odayaasha dhaqanka, qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Masjidkan dhismihiisa ayaa waxaa iska kaashaday qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka Biyacde oo ay hogaaminayaan culimo diinka. Masjidkan dhismihiisa ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 1968 isagoona ku bilowday dhismo cariish ah oo 6 mitir ah, walow ay jireen dhismooyin kala duwan oo lagu sameeyay ka hor intaan dhismahan ballaaran lagu sameynin bartamihii sanadkii 2020 ilaa 2021 bishii saddexaad, sida uu sharaxayo Xaaji Bashiir Axmed Xuseen oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Biyacde. masaajidka ugu horeeyay taariikhdiisa waxaa laga joogaa 53 sano oo lagu dhiso asigoo cariish oo 6 mitir halka masaajidka meesha nafteeda oo geeska hadda laga soo gelayo barandada ku taalo ku yiilay 6 mitir lagu bilaabay. dadku ma joogin beledka, ma deganayn 4 baraako oo 10 nin camal shirka ku taalo lagu bilaabay beledka oo 3 nin 4 nin leeyahay. waa laga soo gudbay 6 mitir waa yaraatay 12 mitir oo fuusa la dhiso, fuusta hoosta looga dhisay, korna la meeyay laga saaray. waa yaraaday beledka, waa la soo degay, waa la deegaamiyay, waa yaraaday. waxaa laga dhigay 18 binti oo dhinac 20 iyo dhinac 18 laga dhigay. 18 ilaa 20 laga dhigay. sidaasaa lagu joogi jiray muddo hadda 20 iyo dhowr sano kaasaa lagu dukaayay. hadda oo ilaahay nagu guuleeyey masjid ka kooban 40 ilaa 40 ah oo 40 mitir ilaa 30 mitir balliciisu gaarayo. Dhismaha masjidkan jaamica ah ee deegaanka Biyacde oo la soo gabagabeeyay ayaa waxaa si rasmi ah xiriga ugu jaray caalimka weyn Sheekh Daawud Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Al Celiyi. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina wa xabiibina wa shafiicina Muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa taabiciin. inaan oo aniga ahal u leeyihiin akhyaartii culummadii waayeelkiyaa wada joogo, laakiin haddii lay wakiishay saas aan isaga geesiyaabay. marka insha allahu masjidka allah ka dhigo masjid barakaysan, masjid khayr allah ka dhigo. intii fikirkaas la heeday, intii la aqbasha oo la qaaday, kulligoodna thawaab jaziila allah ka siiyo. sadaqa jaariya waaye biidnillaahi alkariim kulli jannada allah ku geli. tawfiiqda lagu dhisayna mid daa'ima allah ka dhigo, mid daa'ima allah ka dhigo. waxa waaye haddii ilaahay kuu idmo meeshaan waxa waaye meel magac weyn la waa. hadda waxaan ilaahay ka rajeeyaynaa inay naqato sidii maaragtay ay awalba ahaday u muuqatay isi ka fiican. tawfiiqda allah daa'imiyo. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culimada deegaanka Biyacde ayaa si farxad leh ku soo dhaweeyay xafladda furitaanka masjidka jaamica ah ee deegaanka Biyacde, ayagoona u mahad celiyay dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladda iyo intii ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan jaamica ah. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. allah subxaana wa tacaala ayaa mahadda iskale. masjidkii Biyacde jaamica ahaay ayaa maanta noo furmaya. xildarkiisii iyo xafladiisii iyo nidaamkiisii ayaan halkan u taagannahay. waxaa ka soo qaybgalayay oo yimid culimadiinkii xamarka nooga yimid, culimadiinkii deegaanka, akhyaartii, waxgaradkii, guddigii soo waday hawsha intaas, dadkii muxsiniinta ahaa ee kula baxay hantidooda deegaanadii. alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskale. uma waxaan iyaguna mahadle akhyaarta culimada iyo dadkii muxsiniinta ahay oo dhammaan maanta nagala soo qaybgalay xafladan qiimaha badan masjidkii jaamica ahay ee Biyacde. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa
intii wax ku darsatay in ilaahay thawaab uu ka siiyo waxaa joogta culimo fara badan oo iga cilmi badan igana aqoon badan marka aniga soo dhaweynta le sheekhu iyo waxay mooyaan cilmi malihi marka insha Allah ta'ala wa mahadsantihiin martida sharafta la meel walba ka timid xamar ka timid qaryooyinka magaalada ku hareeraysan ka timid السلام يا دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. الحمد لله هذا الله إسكاله على كوبي كريم وقت كستايح على كستوى الله صلوك من البيت كان نعم يا إلهي لما كوبي كرسول الله لو شرع عيسى القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وحالين هاي بعد الحمد لله وحام هذا اللي سلام إلى علماء نوتي من المدرسة عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كبعد وحائل كرم ظن إلا الشيخ اللهم هب إليه dadka ka qaatay biilkan ilaahay maalinta weyn oo muqtale oo la soo koobi karin ay u badan yihiin deegaanka biicadda soo dhashay hadii yihiin kuwa gudaha jooga iyo hadii yihiin kuwa dibadda jooga intaba waxay ku ramaadle dadka jaarka nala ah qaryooyinkan diriskayna ah sidii meertaqo caadli albaraf joohar macday dhammaan warciise أقبضه إيه ورحمة وحي أنت أنا سوق كرين أو كله مركا أنا كرهان مرة ما بظن كل الليل نوال جوجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad naga daawanaysaan waa ururka Qaadiriya iyo Al-Risaala wal Madrasa kuwaas oo aad ugu barateen barnaamijyada diiniga ah in ay idin soo gudbiyaan waana tabintii anigoo Cabdiraxmaan Shiine iyo duubistii habeentii Cabdiqaadir Sheekh Cabdiraxmaan Mastar Qaxweyste iyo Cabdiweli Maxamuud tan iyo kula dambe sidaas iyo nabadgelyo.